maamulka Home Cable TV ee gobolka Togdheer ayaa deeq ay ku soo hagaajiyeen jaaliyada magaalada Odisi ee dalka Dheermaari kuna soo direen cisbitaalka Maandhaye ee magaalada Burco ku wareejiyay maamulaha cisbitaalkaasi Dr. Naasir Maxamed Nuur oo ah maamulaha cisbitaalka Maandhaye ayaa uga mahad celiyay dadkii soo diray deeqdani oo loogu talagalay dadka maskaxda ka xanuunsanaya marka waxaan soo gaarsiiyay Kiis Axmed Digaale waxaanu laga soo gaarsiiyay urur degan dalka Dheermaari magaalada Odisi la yiraahdo Odisi oo naga soo gaarsiiyay marka waan ka guddoonay hadaan nahay maamulkii cisbitaalka Maandhaye waxa gudida caafimaadka inala joogta marka waxaan isugu jiraan dhar rag iyo dhar dumar waxaan ugu talagalay ciida inaanu siino dadka maskaxda ka xanuunsanaya runtii waxaanu aad iyo aad ugu mahadinaa nimanka soo diray alaabta ururka soo diray waxaan leenahay marka ururada kale Soomaalida meesha joogana ha ku soo daydaan oo ha keenan alaab ama waxtar badan baa looga baahay cisbitaalkan deeqdan oo haydar ayaa loogu talagalay in ay ku ciidaan dadka ku jira cisbitaalkaasi Maandhaye Kiis Axmed Digaale Home Cable TV Burco.